كبيرها وبرواقي وحسوسا كبيرها وبرواقي معدن باك بوحدي إنه هو سبحاني معدن باك بوحدي إنه هو سبحاني markaan ka warramo wax soo saarka beeraha beeruhu aad bay u wanaagsan yihiin wax soo saarkoodu waana ku faraxsanahay inaan kala soo baxno dhulka iyaga khayraadka ku jira waxaanan u sheegayaa dadka ku nool Puntland in dhulku dihin yahay uu barwaaqaysan yahay khayraad uu leeyahay wax lagala soo bixi karo waxaan ka soo baxaynay aysan jirinin waxaan hadda gacanta ku hayaa waa liin dhanaantii weeye waxaan gacanta ku hayaa waxa hadda aan ag taaganahay waa liin dhanaan iyo laba geed camba ah oo isu dhow hadda maaragtay u bixi iyo waxay wadaan dhalmadii hadda geeduhu wadaan liin dhanaanto ayadu ma joojiso dhalmada ma joojiso basashi baa ku taala waxa ku yaala kabsartii waxa ku taala yaanyadii beertu wax soo saarkeedu aad buu u wanaagsan yahay waana ku faraxsanahay in la soo booqdo dadka badaha ku daadanaya iyo dadka Soomaaliyeed dalku inuusan wax ka baxaynin u qaba dalku waxba ka baxaya khayraad buna leeyahay barwaaqa dhex taala meel aan wax ka baxaynin ma jiro nimco adduun baa ku taala waxaan ku xisaabtanaa bishii wixii Ilaahay naga siiyo inaan ka helo lacag fiican baa nooga soo xarooda wadanka hadii loo helo biyaha xagooda biyuhu waa ku yar yihiin dalka biyuhu waa ku yar yihiin dad badan oo wax beeran lahaayo macnaha tabarta u diidaysa baa jira hadii dawladdu ay isku xilqaanto inay dadka macnaha ceelal u qodo oo dadka caawiso oo dadku waa fahmi lahaayeen beeraha annaguna waxaan diyaar u nahay cid kasta oo ka faa'iideysanaysa beeraha inaan ku soo dhaweyno iyo khayraadka ay leeyihiin beertaan hadda waxaan malaynayaa ilaa 12 sano baan anigu halkaan deganahay marka waxa weeye beeruhu aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay waan ku dhaqanahay diyaar baan u nahay wax soo saarka hadda beerahan midaan kaliya ma ahana beer aad u tiro badan baa ku yaala roox fardo cuna la dhahaa anagu meeshan joogno laakiin roox way nagu dhowdahay ilaa roox iyo fardo cuno beeraha ku yaala boqol way ka badan yihiin qaybna waa beeran yihiin oo maaragtay waa beeran yihiin qaybna ma beerna oo dadku u tababaraysto oo beerto buu diyaar u yahay marka waa soo dhaweynaynaa wixii wax beeranaya dadku laba qaab buu sideeda qofku takhasuskiisu yahay qofku iyo qalin buu wax ku bartaa oo beeraha ku bartayo waa buug iyo qalin oo waxna waa practical waxna waa theory qofka macnaha buug iyo qalinka wax ku bartaa waxiisu waa theory waxa practicalkana waa qofka gacantiisa macnaha wax ku taabto oo asagu gacantiisa wax ku soo saara annagu waxaanu nahay dadka wax soo saarka beeraha wax ku soo saara laakiin aan buug iyo qalinka hore ugu soo baran laakiin ka yimid koonfur oo aqoontooda koonfur kala yimid waxaan leenahay dadka badaha ku daadanayo badaha iska daaya ku dhiirada dhulkiina wax kala soo baxa dadka waxa weeye in badan oo wax la soo bixi lahayd war shaqo abuur sameeya dawladdu shaqo abuur ha samayso dadka ceelal ha u qodo dhulka muxuu ahaayay iskaashatooyin ha samayso wixii aan biyo haysan biyaha ku caawiso wixii biyo haystana dhulka ha la fahamsiiyo beeraan iska shaqaysana kadib wax walbana waa beernaa oo kabsartaan beernaa basashan beernaa leynta iyo waxaas qudrada hadda meesha ka muuqato dhan oo aragteen waa waxaan ka gacanteena ku beernay laakiin sida ay tahay Ilaahay waanu garabsiiyay waa ku guuleysanay dhulku wax waa lagu beeran karaa ninkiiba in wax beerto uu rabo kan hadana meesha aan joogno qalabkii qudaartii aqaarkii iyo dooga ka baxa waa u jeedin intaan dhan qudrad oo isticmaalno ama la isticmaalo dadka bani'aadamka isticmaalaan marka dhulka inaad ka faa'iideysataan baan ugu baaqayaa dadka reer Puntland waxaan joogaa gaalkacyo qaasatan beeraha beer barwaaqa waxaan hadda aan jarayna waa kabsar ayaan jarayna dhul kale waxa ku yaala basal alxamdulillaah rabbil caalamiin beertu waa beer iska barwaaqaysan ilaahay baan ugu mahad celinayna hadii ilaahay raali ka noqdo waan u jeedaan dadka oo maartay dibadaha ku maqan oo le Soomaali waxba kama baxa abaar baa ka dhacday de qalbigooda qeyr ha u sheegan meesha waa dhul iska barwaaqaysan waan u jeedaan Soomaali ilaahay baa ku nool ummad ilaahay baa ku nool shimbiraha isaga nool dhul had maarta wax laga sheegi karo maarta wax ma laga sheegi kara ma aha
saas ayaan leeyahay aaminsan dadka maarta oo dibada ku maqan laakiin waxaad ogaanaysaa in dhulka maarta dhulkiin uu yahay oon laga maarmi karin qof kasta oo wareego inuu maarta soo istaaga dhulka Soomaaliya oo waxna ka bixi kara ayaad ogaanaysaan